السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys وولالكن أنا بنور حسن وحنتو سلواتين كان مقال برودكشن إن شاء الله maanta barnaamijkan diyaaleen waxaan la wadaagi doonaa qaabkee aad u jabsan kartaa ablog haddii aadan aqoon waa midkan aad u jeedin tusaale ahaan hadda qaybta waxaan soo galay phone call ka ayaan soo galay ablog ayaa ku xiran sidoo kale qaybta gallery ga ayaan soo furay waad u jeedin waxa ku xiran ablog ayaa ku xiran marka ablogiska way badan yihiin qaybta hadda waxaan soo booqanayaa Play Store ka ayaan soo booqanayaa waad u jeedin ayaan filayaa intaano ablog ayaa jirto marka isku si aad u jibin kartaa dhamaan ablogiska haddii aad mar walba aad isticmaashid ablog si aadan lagaga jabsan videogan dhamaadkiisa waxaan ku sheegi doonaa talo aad ku ilaashan kartid inaadan laga jabsan abloga muuqaalkan haddii aad fahantid qaabka loo jabsanayo abloga data ku dhibaateen muuqaalkan waxaan u soo duubayaa waxbarashahan ayaan u soo duubayaa si aad u jabsatid abloga ugu horeen qofka aad u baahan tahay inaad ka jabsatid ablog waxaad ogaanaysaa telefonkiisa ablog ku xiran aniga ablogan ayaa ku xiran telefonkayga markaad abloga aad ogaatid waxaad imaanaysaa qaybta setting ayaad imaanaysaa telefonka qaybta setting markaad imaatid waxaad raadinaysaa qaybta applicationska aad raadinaysaa waad u jeedin applicationska aad raadinaysaa sidoo kale waxaad ku dhufanaysaa application managerska aad ku dhufanaysaa muhiimadu waxa waaye dhamaan applicationska telefonka meesha ay ku jiraan inaad tagtid application managerka markaad soo furtid waxaad raadinaysaa applicationka aad raadinaysaa ama ablog aad raadinaysaa ablog ku xiran telefonkayga waa midkan aad u jeedin kadib applicationka aad dooranaysaa applicationka markaad dooratid si aad iskaga furtid dhamaan applicationada ku xiran ablogas waxaad ku sameynaysaa applicationka force stop aad ku sameynaysaa shaqada uu ku shaqeynayo oo idil ayaad ka joojinaysaa applicationkan markaad force stop aad ku sameysid oo okay aad ku dhufatid shaqada uu ku shaqeynayo applicationka aad ka joojisid hadda waxaynu booqanaynaa gallery-ga gallery-ga ayaan ku dhufanayaa waad u jeedin gallery-ga uu soo furmay gallery-ga waa empty wax ku jira ma lahan sidoo kale waxaan ku dhufanayaa qaybta calliska ayaan soo furayaa calliska markaan ku dhufto waad u jeedin ayaan filayaa caadi ayuu shaqeynayaa marka ablog kasta sidan ayaad u jabsan kartaa abloga waxaad imaanaysaa qaybta setting ayaad imaanaysaa kadib qaybta waxaad imaanaysaa applicationska ayaad imaanaysaa applicationka ku xiran yahay ablogas ayaad dooranaysaa kadib waxaad ku sameynaysaa applicationka markaad dooratid abloga force stop ayaad ku sameynaysaa marka sidaas ayaad u jabsan kartaa ablog kasta haddii aad isticmaashid ablog waxaan tale ahaan kuu siinayaa si aanan qofkaas setting laga maamulo telefonka uusan u gudbin setting naftirkiisa aad waxaad ku sameynaysaa waad ka xiraysaa settingaas haddii aad ka xirtid lagama jabsan karo muhiimadu waxa way qofka inuu setting aado kadib applicationska uu aado sidaas inuu force stop applicationka uu ku sameeyo marka saaxiibayaal intaan aan jeclaysan in la wadaago walaalkiin Adam Nuur Xasan oo idin la salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh